hay'adda nabad sugidda qaranka inuu muddo 48 saacadood gudaheeda ah uu ku soo gudbiyo warbixin dhammaystiran oo ku saabsan kiiska Igraan Tahliil Faarax. kulanti waxaan daawadayaal waa 4 bisha Sebtembar 2021 wararka habeenimo ee warbaahinta ogaal waxaanu ku soo qaadanaynaa waxa ka mid noqon doona ra'iisul wasaaraha dalka mudane Maxamed Xuseen Roble waxa uu digniin u diray taliyaha hay'adda NISA 48 saacadood ayuu qabtay inuu ku keeno warbixin dhammaystiran kiiska Igraan Tahliil xilli maanta ra'iisul wasaaraha uu shir jaraa'id qabtay. hooyada dhashay Igraan Tahliil hooyo qaali ayaana waxay shaacisay qodobo dhex martay ama wareysyo dhex maray bay tiri Igraan Fahad iyo weliba sidoo kale kulan waxay ka wada hadleen warbixinteena caawa ayaanu daawadayaal ku soo qaadan doona kiiska Igraan Tahliil oo meel xasaasi ah gaaray iyo weliba sidoo kale wararkii ugu dambeeyay arrinta Igraan Tahliil ayaa qayb ka noqon doona ilaa iyo hadda cadeemaha muujinaya in Igraan ay nooshahay iyo weliba sidoo kale halka ay ku dambeysay ayaa qayb ka noqon doona wararkeena caawa ee warbaahinta ogaal. haddii aad ka mid tahay saaxiibada ku cusub wararkeena fadlan la sii wadaag asxaabtaada kale adigoo gaarsiin kara lana sii wadaagi kara baraha bulshada ee Facebooka, Twitterka iyo weliba sidoo kale YouTubeka. ra'iisul wasaaraha dalka mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa ka hadlay geerida Allah u naxariistay Igraan Tahliil ayaa waxa uu sheegay in warka ay soo saareen ee ku aadan kiiska Igraan Tahliil hay'adda nabad sugidda uusan ahayn buu yiri mid dhammaystirneen oo aan lagu qanci karin isagoo sheegay in aysan keenin hay'addu wax cadeymaha oo ku filan buu yiri oo lagu qanci karo. Roble ayaa waxa uu xusay inuu la socday kiiska Igraan intii ay soo bilaabatay arrintan Igraan si dhow ayaana ula socday buu yiri una faray hoggaanka NISA inay keenaan xog dhammaystiran isagoo ku tilmaamay nasiib daro warbixinta ay hay'addu NISA soo daabacday. waxa uuna yiri waxaan u cadeynayaa qoyska Igraan iyo shacabka Soomaaliyeed in xukuumadda ay ka go'an tahay in Igraan iyo qoyskeeda ay helaan cadaalad rasmi ayuu yiri. waxa uuna amray in taliyaha nabad sugidda uu muddo 48 saacadood gudahood inuu ku soo gudbiyo warbixin dhammaystiran oo ku aadan kiiska Igraan Tahliil. waxa uu xuseen ra'iisul wasaaruhu go'aan ka gaari doono markuu helo warbixinta dhammaystiran ku habboon lana wadaagi doono dhammaanba shacabka Soomaaliyeed. ra'iisul wasaaraha ayaan ugu baaqay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed deganaansho inay kana fogaadaan in lagu xadgudbo buu yiri dadka aan waxba galabsanay kiiskan iyagu aan waxba ka gelin. hadalka ra'iisul wasaare Roble ayaa u muuqday shakiyo waaweyn ay ka soo baxayaan kiiska Igraan Tahliil oo hay'adda nabad sugidda ay sheegtay in dilkeeda ay ka dambeeyeen ururka Al-Shabaab balse ururkaasi ayaa gabi ahaanba iska fogay iyagoo ku sheegay qoraal ay soo daabeen inay tahay buu yiraahdeen wax lagu fajaco in aysan buu yiraahdeen warbixintii ay soo saareen hay'adda NISA ahayd inay iyagu ka dambeeyeen dilka Igraan Tahliil Faarax. Igraan Tahliil Faarax ee sargaalid ka tirsan hay'adda NISA isla markaasna muddo u soo shaqeynaysay ayaa la waayay 2 bilood ka hor xilli habeenimo ah xilligaas oo la sheegay in ay la balansaneen taliyaha ugu sareeya hay'addaas NISA ee Fahad Yaasin. wixii intaasi ka dambeeyay waxaa socday dadaalo lagu baadigoobayo meesha ay ku dambeysay inkastoo markiiba ay soo baxday warbixin ku aadan in kiiska Igraan Tahliil Faarax ay ku dambeysay hay'adda NISA isla markaasna aysan waxba ka gelin ururka Al-Shabaab. wixii intaasi ka dambeeyay hay'adda NISA ayaa waxa ay ka fakaraysay baa la yiri warbixinta ay soo saari kartay ee ku aadan soo afjarista kiiskaas Igraan Tahliil inkastoo aan si dhab ah loo ogeyn in Igraan la dilay iyo in ay nooshahay gabi ahaanba. dhanka kalena hooyada dhashay Igraan Tahliil Qaali Maxamuud Guhaad oo hooyada dhashay Igraan ayaa waxay caawa warbaahinta kula hadashay Muqdisho waxay mar kale dowladda ka dalbatay in la cadeeyo kiiska gabadheeda oo meel loogu sheego buu yiri tiri nolol iyo geeri haddii ay nooshahayna hana loo keena haddii ay ama la dilay ama dhimatayna meydkeeda aan helno. hooyadan ayaana sharxaad dheer ka bixisay halka ay ku dhalatay gabadheeda halka ay wax ku baratay goorta ay ku biirtay NISA iyo xogta ay siisay habeenkii ugu wardambeysay ee ay la wadaagtay. waxay tiri waxa jirtay inaan maalin soo wacay gabadheeda waxay maalintaas igu tiri hooyo madaxay xanuunayo waxa iga soo xanaajiyay nin kulanajiis la yiraahdo oo hay'adda igala tirsan oo ii handaday waxyaabo aanan jeclaysanna i weydiiyey. markii iima aysan sheegin waxa uu ku weydiiyey oo ay ka xanaaqday balse waxay igu tiri mar kale ayaan kuu sheegi doonaa hooyo. hooyada ayaa sidaas warbaahintu u sheegtay sidoo kale waxay sheegtay in habeenkii ugu dambeeyay ee loo wacayay xarunta NISA ay gabadheeda kula hadashay video call isla markaasna ay u sheegtay in xarunta looga yeeray gaarina loo soo diray. sidoo kalena hooyo qaali waxay sheegtay in marka la eego halka deegaaneed gabadheeda iyo weliba feejignaanta ay qabtay Igraan marka ay dib u eegto aysan suurtagal ahayn bay tiri in Al-Shabaab ay u gacan gasho. markii la waayay gabadheeda kadib hooyo qaali waxay sheegtay in Fahad Yaasin uu yeeray oo markii ay la kulantay uu ku qanciyay in 2 maalmood gudahood uu jawaab ka soo siin doonto halka ay jirto gabadheeda Igraan balse taasi ma dhicin bay tiri.
labadii beri ee Fahad Yaasin qabsaday waxay qaadatay buu tiri 3 bilood oo wax yar dhiman. waxay soo xigtay qoraalkii Facebook ee lagu yiri gabadhaasi shabaab baa dilay. wax caqliga galaya ma aha, gabadhayda hadday dileen meedkeedii ayaan ka rabaa, haddii ay nooshahayna ha ii soo daayaan. dhanka kalena maamada dhashay Igraan ayaa bisay oo reerkeeda uga dacwootay xildhibaan Daahir Amiin Jeesow ah reerka ay ka dhalatay Igraan Tahliil ku matala golaha shacabka, waxayna xildhibaankana ku eedeysay kiiska gabadheeda uu xagal daacinayay isla markaasna uusan si sax ah arintani u gelinin. arrinta kiiska Igraan Tahliil ayaa u muuqda mid faraha kasii baxaysa markaasna keeni kara kala shaki ku aadan isla hay'adaasi aanisa. dad badan oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin ayaa arrintan si adag uga hadlay, waxaana la sheegayaa in wararka qaarkood oo soo baxay sheegayaan in Igraan ay nooshahay isla markaasna hay'adda NISA ay hayso baa la yiraahday, isla markaasna qorshuhu ay u dejisay dilkeeda ayaa la sheegayaa inuu yahay baa la yiri mid hadda kadib ah ama mid hadda kadib ka dambeyn doonto. lama ogo si sax ah, looma baahin ama looma oga halka ay ku dambeyso cidda sida saxda ah u dishay, meesha lagu dilay, meydkeeda cidda heshay iyo weliba warbixino dheeraad oo arrintaasi ku saabsan. ilaa hadda xafiiska ra'iisul wasaare Roble waxa uu kaliya warka caawa ay ku aadan inuu 48 saacadood u qabtay hay'adaasi NISA ayaa ugu dambeyntii jawaabta ah, iyadoona laga dhowrsigi doono 2 maalin kadib go'aanka uu qaadan doono ra'iisul wasaare Roble haddii mar kale NISA ay ku soo ceeriso isla warbixintii hore loogu daabacay barta Facebook ee TV-ga qaranka ee SNTV. ilaa haddana lama shaacin karo ama lama ogaan karo waxyaabaha rasmiga ah ee kiiska Igraan Tahliil Faarax. dhanka kalena caawa magaalada Jowhar qaraxyo ayaa laga maqlayaa, iyadoona wararkan helan ay sheegayaan in hubiyaal laga maqlay gudaha magaaladaasi agaarka madaxtooyada Hirshabelle. dad ku sugan ayaa Jowhar waxay sheegayaan inay maqleen hubiyaal ku daadanaya ama ku hoobanaya meel aan sidaas uga fogeyn xarunta madaxtooyada Hirshabelle oo ku sugan yihiin madaxweynaha maamul goboleedkaasi Hirshabelle, madaxweyne ku-xigeenka, gudoomiyaha baarlamaanka, siyaasiyiin dhowr ah iyo golaha xildhibaanada ee maamul goboleedkaasi. waxaa cabsi soo wajahday dadka ku nool magaalada Jowhar, iyadoona la sheegayo in bamba gacmeedyo sidoo kale lagu weeraray guryo ay deganaayeen xildhibaanada ka tirsan maamul goboleedka Hirshabelle. weerarka bambada ayaa waxaa xalay ku dhaawacmay sidoo kale 3 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Hirshabelle ayaa isku diyaarinaysa doorashada senatarada aqalka sare, iyadoo magaaladaasi ay ku sugan yihiin guud ahaanba siyaasiyiinta iyagu musharax u ah xilka senatarnimada ee maamul goboleedkaasi Hirshabelle ka soo gali doona. lama oga waxa ku soo aadinaya dhacdooyinkan isdaba joog ah laba habeenkii labaad ka soconaya caasimadda maamul goboleedkaasi Hirshabelle ee ku soo aadiyay xilliga ololaha doorashada ee maamul goboleedkaasi ee ku aadan in ay isku dhawaaqaan liiska kama dambeysta ah ee aqalka sare. Cali Guudlaaw Xuseen oo ah madaxweynaha maamul goboleedkaasi Hirshabelle ayaa waxaa soo wajahday siyaasadda xooggan oo gudaha, taas oo ka dhalatay in ay maamul goboleedkiisa si adag uga hor yimaadeen gobolka Hiiraan dadka degaya matalaadooda, iyadoona sidoo kale ay magaalada beledweyne u ilaa hadda uusan tegin madaxweynaha maamul goboleedkaasi Hirshabelle Cali Guudlaaw Xuseen.